بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد walaalayaal marka hore assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka labaad waxaan jeclaaday maanta in aan idinla wadaago mowduuc xaqiiqdii sal ballaaran laakiin aan rabno wax yar oo ka mid ah in aan maanta ka wada hadalno mowduucaas oo mowduuca la yiraahdo hogaamintu waa waxyaalaha maanta bulsho walba horumartay ay ku guuleysatay ama horumarkeeda ay ku gaartay marka su-aasha aan in muddo isweydiinaya waxay ahayd hogaamintu xaggee ayay ka bilaabataa su-aashaas jawaabteeda haddii aan helno wax badan ayaa inoo fududaanaya waxaan noo soo baxaya cabirka ama miisaanka dadka aan ku saarno in ay yihiin hogaamiyayaal fiican iyo inaysan ahayn hogaaminta waxay ka bilaabataa waa qofka isaga naftiisa inta aadan bulshada hogaamiye aadan u noqon waa inaad nafsadaada hogaamiye aad u noqotaa waa inaad nafsadaada ka adkaataa yacni laba shayba waad uga adkaanaysaa shayga koowaad waa in aad horta wuxuu rabbigii subxaana watacaala adiga ku abuurtay kuu amray waa inaad ka soo baxdid waa inaad ilaah subxaana watacaala xuquuqdiisa aad garanaysid waa inaad ilaah subxaana watacaala waxyaaluhu ku yiraahda ee shubahaadka iyo shahwaadka iskugu jiray waa inaad meel iska dhigtid qof dhowrsan waa inaad tahay qof nadiif waa inaad tahay qof waxa weeye sharciga ilaah subxaana watacaala raacaya dadkana u yaqaanaan qof fiican oo nadiif ah oo daahirsan oo ammaano leh waa inaad tahay soo qodobkaas qodobka koowaad waaye qodobkaasna waa qodobka ugu muhiimsan ilaah subxaana watacaala uu leeyahay qofka yacni waxa weye wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun aayaddaa fahamkeeda faham weyn waay cibaadada waxaa soo hoosgelaya waxyaalahan oo dhan waa inaad noqotid qofka dadkii ay yacni waxa waaye aamini karaan ilaah subxaana watacaala allah subxaana watacaala wuxuuna amrayaa in yacni waxaa dadka aan ammaano u yeelano waa in dadka waxaa waaye dhexdooda ay naga nabad galaan waa in dadka shahwadii iyo shubahaadkii aan ka leexan karno waxyaalihii xaaraanta ahaa waxyaalihii mataqaanaa shubhada lahaa waxyaalahaas oo dhan waa inaan ka leexan karno waxyaalahaas markaan ka leexano waxaan noqonaynaa dad ilaah subxaana watacaala agtiisa ka dhowrsan qodobka labaadna waa qodob ah in qofka nafsadiisa uu u horumariyo maada ahaan ilan qof markaad hogaamiye noqotid dadka ayaa tusaale u noqonaysaa marka adigoo jaahil ah oo waxba aan baran dadka aqoon iyo cilmi uguma yeeri kartid adigoo weliga aan shaqaysan ama shaqo macnaheeda aadan aqoon ama sida dhaqaalo loo sameeyo aadan garanayn dadku uguma yeeri kartid howlahaas marka waxaa loo baahan yahay khibrad ahaan in aad tahay qof aqoon leh oo intaas sano wax soo bartay qof dadka sida dhaqaalaha ama shaqada loogu sameeyo yacni waxaa weeye yaqaan wax at least wax ka yaqaan inaad tahay marka labadaas qodob waa laba qodob muhiim ah markaad fiirisid taariikhda islaamka waxaad arkaysaa labada qodob ee ku horumareen muslimiintii hore inay ahaayeen kow dad diintooda ku dhegan shareecada ilaahi subxaana watacaala raacaya iyagana xaqoodiina isa siiyey dadka kale ee muslimiinta ahaydna xaqoodii siiyey iyagana waa iska nabad galeen dadkii kalena way ka nabad galeen yacni waa qodob koowaad qodobka labaad oo ah horumar xagga waxbarashada taariikhda buwaagta waxaad ku akrinaysaa xataa wadamada hadda hormaray ee galbeedka wadamada islaamka ay u imaan jireen inay wax ka bartaan wadamada islaamka ay u imaan jireen in dhaqaatiirtooda ay arkaan wadamada islaamka ay caruurtooda usoo diri jireen waxyaalahaas oo dhan waa labada shay ee xadaaradu ay ku dhisanto marka adiga naftaada marka hore ka bilaabo marka xigta bulshada marka u imow qodobkaas waxaan ku darayaa oo xagga hogaaminta ku saabsan qodob kale waan isleeyahay in badan waan dhayalsanaa qof walba oo hogaamiye isku sheegaya ama hogaamiye ah waa in uusan ka daalin inuu wax barto yacni haddaad aragtid qof hogaamiye ah oo ku dhahaya aniga wax walba waa aqaanaa waan dhameeyey waddadaana wax lagu qaban karaa waddadaanaan soo arkay saanaan kaa rabaa qofkaas qof qaldan waayo qof aan hogaamiye ahayn waayo sababta waxaad arkaysaa allah subxaana watacaala nebi maxamed عليه السلام وكليه واحد هذا وقول رب زدني علما سو نبي الله سو لو وحيوني سو رسولك أمضى سو وفضل بدن خلقه هذا نحن نقول هي ديالصن واحد هذا
ilaahay uu cilmi isiiyey. Marka qofka hogaamiye ah waa qof mar walba isaga cilmi baranaya, buugi qalin wata, mar walba wax akhrinaya, mar walba ka fakaraya sida ummadiisa ku horumarin lahaa, hal abuur la imaanaya, khibrad la imaanaya, talo la imaanaya, dadku iskugu yeeraya. Qofkaas ayaa hogaamiye ah. Marka xagee ka bilaabataa hogaamiyaha? waxa way qofka shakhsi ayuu hogaaminimada ka bilowdaa. marka shakhsi markaan helno oo qof walba oo ka soo baxay nafsadiisa inuu hogaamiyo, yani waxa weeye meel fiican ayaan gaaraynaa. waxaan rabaa inaan kaga tago inta aan muuqaalka xiga iskaga arkeyno muuqaalkan soo socda xaqiiqdii aadka u qiimaha badan wuxuuna ku baxaya afka Ingiriiska. waa nin xagga hogaaminta ku takhasusay oo khibrada adduunka ka mid ah, iyo qofka hogaamiye ah sida loogu baahan yahay inuu noqdo qof isaga wax baranaya oo mar walba dhaxaya, yani waxa weeye cilmi iyo aqoonba u baahanahay. saana shal loo sameynayay, laakiin maanta si cusub ayaa u baahanaa inaan u sameyno ayuu ka hadlaya cajiladan soo socota. إن شاء الله خير بدن بين رجينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So leadership is a practice. I don't believe that anyone is an expert in leadership. We're all students. And some of us are more advanced students than others, but it's something that is ongoing. It is literally a practice, and that you have to show up and try and be a better leader every single day. Yeah. And so every leader that I admire, and some of them have achieved amazing things. I mean, you're hearing from some of them today. Yeah. Some of them have achieved amazing things, and they're all curious. And when I sit down with them, they all go like this, you know. And I'm so enamored by that no matter how much they know and how much they've accomplished, they want to know. They know that there's more to know. I just recently. You're never too old to learn. No, but I mean, I'm talking about the you know, Richard Branson, Howard Schultz. Yeah. Like all of these guys that I've had the opportunity to meet, they're all insatiably curious. And they all know that whatever they've done, they know there's so much more they don't know. And the ones I'm suspicious of are the ones that go, I think I know what I'm doing. I think I know. So you don't know what you're doing. No, I'm learning as I'm going, as we all are.